gudoomiyaha degmada Beled Xawo Mudane Shira Cabdullaahi Cabdi Keenan ayaa shir gudoomiye shirka khamiislaha amniga degmada kaas oo diiradda lagu saarayo xoojinta ammaanka guud ee degmada iskaashiga ciidamada iyo bulshada rayidka iyo sidii looga hortagi lahaa falalka amni darro ee laga yaabo inay saameyn ku yeeshaan deegaanka shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka degmada ahna madaxa amniga iyo siyaasadda saraakiisha amniga degmada sida booliska nabad sugidda iyo militariga iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada gudoomiyaha ayaa wuxuu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in la helo isfaham iyo wada shaqayn dhab ah oo u dhaxaysa maamulka iyo hay'adaha amniga iyo sidoo kale shacabka si loo helo nabad iyo xasilooni waarta intii uu socday shirka ayaa sidoo kale lagu falanqeeyay warbixino la xiriira xaaladaha amniga degmada tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah sugidda amniga xilliyada habeenkii dardargelinta howlaha ka dhanka ah burcadda iyo sidoo kale kooxaha argagixisada raxanka daran ee al-shabaab ugu dambeyntiina shirka ayaa ku soo dhamaaday isfaham buuxa Cabdiraxmaan Warbaahinta Qaranka degmada Beled Xawo ee gobolka Gadow.